السلام عليكم فيلكeen wuxuu ka bilaabanayaa keentani xayawaanada ku nool yihiin shabeeleydan ayadoo nuujinaysa caruurteeda markiiba waxaa soo weeraraya libaax waxay isku dayaysaa in ay ka fakato laakiin ugu dambeyntii wuu cunaa meeshan waxaa ku soo haray caruurta haddana habeenka ayaa la gaaray shabeelkan yariiska wuxuu soo aaday laamiga dhinaca kale laamiga waxaa ka soo socday gaari madow oo ay saaran yihiin nin lagu magacaabo Peter iyo cunugiiseen waxay arkayaan shabeelkan yar oo baabuur ku soo dhow yahay markiiba gaariga ay ka soo deganayaan waxayna soo qaabanayaan shabeelkani waxay dareemayaan inuu ka soo dhumay qoyskiisa waxayna markaasi go'aansanayaan inay geeyaan maqaayad intaas kadib shabeelka yar maqaayada ayaa la geenayaa cunto ayaa la siinayaa wiilkani Zayn aabihi wuxuu ka cunsanaa inuu wato shabeelkani aabihi wuxuu ku dhahaa waan ku ogolahay laakiin ogow mar uun inuu shabeelkan weynaan doono oona ku qasbanaan doono inuu ku noolaado duurka intaas kadib Zayn iyo aabihi baabuurka ay qaadanayaan waxayna soo aadayaan guriga Zayn hooyadii markii ay aragto shabeelka aad bay ula dhacaysaa intaas kadib Zayn wuxuu bilaabaa inuu shabeelkani seexiyo dhinaca dambe ee sariirtiisa haddana maalinta kale ayaa la gaaray familka waxay bilaabayaan inay shabeelkan jawi la qaataan oo ay isku sawiraan Zayn wuxuu bilaabayaa inuu shabeelkan ula dhaqmo sida cunug yar camal wuxuuna baraa habka uu ciyaari lahaa iyo qaabka suuliga uu gali lahaa wuxuuna u bixinaa magaca Duma Peter iyo cunugii waxa ay bilaabayaan inay Duma u dhisaan guriga sanada ay ka soo wareeganayso Dumana waa mid weynaaday Zayn iyo aabihi waxay bilaabayaan inay u tababaraan Duma habka uu ordi lahaa iyo habka uu fakan lahaa mar iyagoo ku dheelayaan beerta Zayn wuxuu arkayaa aabihi oo ka soo dhacay gaariga dhaawac ayaa soo gaaray Peterna muddo ayuu ku jiray isbitaalka muddo kadib uu soo caafimaday Peter iyo wiilkii waxa ay bilaabayaan in ay Duma baraan orodka degdega Zayn waqtiga waa mid muuqaal ka duubaya Duma markaas Duma wuxuu orodkiisa gaarsiisanaa halkii saac 100 kiiloomitir waana number weyn taas kadib Zayn aabihi wuxuu ku dhahaa hadda waxaa la gaaray waqtigii Duma aan u celin lahaynay meeshiisii hore maadaama hadda uu weynaaday laakiin Zayn uu ka soo horjeesanaa hadalka aabihi wuxuuna dhahaa muhiim ma ahan in Duma uu ku laabto goobtiisa oo noqdo bahal laakiin aabihi wuxuu ku oranaa waa laga maarmaan inuu noqdo bahal sababtoo ah waa mid uu ku dhashtay intaas kadib habeenada ka mid ah Zayn asigoo hurdaya wuxuu maqlaa dhawaq ambalaas hurdada ayuu ka soo kaca wuxuuna maqlaa hadalkii wax maanulihiisa oo ah dhimashada aabihiisa isla markiiba asigoo hooyadiis waa ay baxaan waxay soo doogayaan aabihiisa waxayna maalinkaas iyo maalmo dambaba ay ka murugeysnaayeen dhimashada aabihiisa maadaama ay ku noqotay mid lama filaan ah intaas kadib hooyadiis waxay ku leedahay bal ka waran haddii aan ka tagno meeshaani oo aan ku noolaanay guriga ayeyda Zayn hooyadiis waa uu ka diida arrinkaasi wuxuu u sheegay inuu doonayo inuu ku noolaado keentaan markiiba wuxuu isku tuuraa barkeed intaas kadib waa ay heshiinayaan waxayna soo aadayaan magaalada Zayn hooyadiis waxay keenaysaa iskuulkiisa waxayna u sheegaysaa inuu iskuulkiisa si fiican ugu qaato intaas kadib ayadana ay u soo laabanayso aan aadna Duma asigoo kaligiisa guriga jooga wuxuu qabsanayaa remote-ka wuxuuna markiiba ku daarayaa TV-ga wuxuuna arkayaa dhawaaq ka soo baxay TV-ga markii waa uu naxaya wuxuuna soo raacayaa baabuur wuxuuna markiiba imaanayaa iskuulka Zayn asigoo iska qaadanaya maadadiisa wuxuu arkayaa Duma oo ka soo muuqda dhanka dariishada markiiba iskuulka waxaa ka bilaabanaya buuq Zayn iyo Duma markiiba way soo baxayaan waxayna imaanayaan meel banaanka ah Zayn wuxuu ku qasbanaanayaa inuu arrinka aabihiisa oo ah in Duma uu kaxeeyo meesha asiga ku noolaan jiray awal iyo walaalihiisa kadib Zayn wuxuu soo qaadanaa mootada aabihiisa wuxuuna soo aadaa safarka midkaas oo ujeedadiisu tahay inuu Duma geeyo meeshiisa awalka haddaba meeshani asigoo ku guda jiro socodkiisa ayaa mootada waxaa ka dhamaanaya shidaalka waxayna ku qasbanaanayaan inay meeshani joogaan muddo ilaa ay ka helayaan gargaar waxayna iska fadhiisanayaan diyaaradda hoosteeda Zayn markiiba wuxuu arkayaa mootada aabihiisa oo nin saaran yahay wuu la yaabaya markiiba asiga iyo Duma ayaa dhanka kale ka soo baxayaan ninka lagu magacaabo Reebkuna waa uu naxaya haddana Zayn iyo Reebkuna waxay ku fikirayaan habkii ugu bixi lahaayeen saxarahani Zaynna waa mid caqli badan wuxuu arkayaa baarashuud wuxuuna markiiba ku xirayaa mootada ay markiiba sidaas ugu soconayaan ilaa ay ka gaaraan meel oo dhulkeeda oo biyo ka buuxaan markaas kadib Duma wuxuu arkayaa shimbir markaasuu Zayn wuxuu ku dhiirigelinayaa Duma inuu ugaarsado shimbirkani laakiin halkuu ugaarsan lahaa shimbirka isla markiiba Duma wuxuu aadayaa ukumihii Reebkuna wuxuu Zayn u sheegaa in kan uusan aqaanin sida wax loo ugaarsado ayna fiican tahay inuu iskaga gado uuna ka faa'iido lacag markaas kadib wuxuu weydiinaa halkuu u socdo Zayn wuxuuna soo baxsanaa qariirad wuxuuna sheegay in qariiradan aabihii uu ku calaamiyey meeshii uu Duma ku noolaan lahaa Reebkuna wuxuu sheegay in meeshan lagu magacaabo Okavango wuxuuna u sheegay in meeshani ay tahay qatar wuxuuna ugu digaa aadada meeshani Zayn hadalkaasi dhig uma dhigayo asiga iyo Reebkuna meesha ayayna soo aadayaan waxayna arkayaan meel ay ka buuxaan lafo jajaban waxayna u muuqanayo diyaarad helicopter ah waxayna ugu shakinayaan in kuwani ay yihiin tuugo oo ay macquul tahay inay soo aadaan laakiin waa Zayn hooyadii intaas kadib Zayn wuxuu ku soo tagaa saaxiibkiisa Reebkuna wuxuuna soo aadaa meel buuraha intaas kadib waxay samaysanayaan qashab yar midkaas oo ay ugu gudbaan webiga waxayna markaasi arkayaan yaxaas waxaana qalqal galayo qashabka waxayna ku dhacayaan webiga laakiin ugu dambeyn way ku guuleysanayaan inay ka soo baxaan webiga Zayn hooyadii markaa waxay ku guda jirtaa raadinta markaas kadib wuxuu Zayn maqlaa cod xayawaano badan oo ordayaan wuxuuna ku
dhuumanaa geedka, laakiin Duma ayaa si lama filaan ugu dhumaayo. Wuxuuna galaa meel shabaq ah, wuxuuna isku dayaa inuu raadiyo heer xataa uu Zane jidka uu ka lumo. Mar ayaa wuxuu arkay xayawaanka doofaarka, wuxuuna isku dayaa inuusan dhaqdhaqaaqin si uusan u dareemin, laakiin madaxa ayaa carcaaro ka qaniinayso. Markiiba waa uu cararaa, laakiin ugu dambeyntii dhulka ayuu ku dhacaa. Markaas kadib wuxuu soo kacaa, wuxuuna arkaa Ripkuna oo dhinaca joogo, wuxuuna ogaanaa in asiga iyo Duma uu soo badbaadiyey. Wuxuuna ka raaligelinaa kasoo tagitaanka uu kasoo tagay. Wuxuuna intaas kadib Ripkuna sheegay qisadiisa, wuxuuna sheegay inuu kasoo tagay qoyskiisa si uu magaalada ugu shaqaysto lacag, laakiin ma uusan helin wax shaqo ah. Haatan xaalku uu ka qaldan yahay. Maalinka xiga waxay Duma ku dhiirigelinayaan inuu ugaarsado xayawaanada, laakiin uu ku guuldareysanaa. Markaas kadib waxay arkayaan meel xaflad lagu qabanayo, waxayna go'aansanayaan inay meeshaasi ka xadaan cunto. Markaas kadib Zane ayaa meesha soo galaya asigoo iska dhigaya qof xanuunsan. Kadibna dadka ayaa kusoo kala ordayaan oo fiirinayaan, waxaana markiiba hortooda kasoo muuqanaya mas, midkaasoo sunta laga bixiyey. Dadka markiiba way kala cararayaan, waxayna meesha soo galayo Ripkuna asiga iyo Zane. Markiiba cuntada ayay eber ka dhigayaan. Zane wuxuu Ripkuna siinaa lacag maadaama uu saaciday. Markii ay kasoo baxaan webiga, waxay raadinayaan meel Duma munaasib ku ah, waxayna dhulka ku arkayaan xayawaan dhintay. Dumana wuxuu bilaabaa inuu cuno xayawaankaas dhintay. Zane markuu usoo dhawaaday wejiga ayuu u bedelay si keligii u cuno. Ripkuna wuxuu dhahaa markaani shabeelka bahalnimadiisa ayuu la soo baxay, waana sida loo baahan yahay. Waxaana habeenkaasi ay ku baryayaan god weyn oo meesha ka dhow. Wuxuuna Ripkuna u sheegaa inuu si degdeg ah Duma ugu raadiyaan meel si ay magaalka ugu laabtaan. Markaas kadib waxa ay soo gaarayaan meel cidla ah. Markiiba waxaa soo weeraraya cayayaan. Ripkuna wuxuu isku dayaa inuu badbaadiyo, laakiin Zane waxaa soo wajahaya xanuun. Waxaana la gaaray habeenkii, jawiguna waa mid roob da'ayo. Waxayna u baahanayaan in ay dab shitaan si bahalada ay ku taxadiraan. Waxayna ku khasbanaanayaan inay lacagtooda ay shitaan. Zane wuxuu raadinaa hooy ka dhow agagaarkooda, wuxuuna gadaashiisa kasoo cararaya libaax. Duma wuxuu isku dayaa inuu daba kaco. Intaas kadib Zane wuxuu soo helay hoygii ka ag dhowaa meesha. Duma wuxuu usoo baxa banaanka, wuxuuna maqlaa cod kasoo yeerayo dhanka buuraha, wuuna cararaa. Wuxuuna shabeel kale oo hortiisa ka muuqda. Ma aysan kala cadeyn inuu yahay shabeel caadi ah ama walaalihii oo yaraanta kala tageen. Cidaana Zane oo la joogana waxay noqonayaan Ripkuna familkiisa. Markuu soo kaco wuxuu arkaa xaaskiisa iyo carruurtiisa. Zane wuxuu iska soo baxaa, wuxuuna raadinaa Duma. wuxuuna markiiba arkaa Duma iyo shabeel kale oo wada baashaalayaan. wuxuuna Zane ogaanaa in markaani Duma ay kala tagi rabaan. Markiiba wuxuu bilaabaa inuu maxsalaamiyo oo madaxa u salaaxo. Intaas kadib Zane wuxuu dareemaa murugo badan maadaama ay kala tagi rabaan oo aynan is arki doonin saaxiibkiisa. Filimkana wuxuu ku dhammaanayaa Zane iyo hooyadiisa oo kulmeen. Filimkan halkan ayuu ku egyahay. haddii aad ka heshay filimkani, muuqaalkan like dheh, channelka kalsoonina subscribe dheh. filimo badan oo xiiso badanna waa ay soo socdaan. mahadsanidin.